bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV saaka idin haya waxa kamida Puntland iyo Galmudug oo isbahaysi cusub sameystay kana soo horjeestay laba sharci oo dawladda Soomaaliya ay wado ciidamada Kenya oo ka hor yimid qorshe dawladda ay uga saari lahayd magaalada Kismaayo shirkado shidaal baaris ka sameynaya Soomaaliya oo malaayiin dollar siiyay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre guddi ka shaqeeya sugidda amniga doorashooyinka Jubbaland oo la magacaabay Soomaaliya oo diiday in fursad ay siiso Kenya wararka dibadda wararka TV saaka idin haya waxa kamida Mareykanka oo hanjabay Turkiga iyo Kenya oo musaafirisay muwaadiniin ajnabi oo ku sugnaa dalkeeda daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad kamid tahay daawadayaasha ku cusub barteena YouTube-ka fadlan rukumo barteena si warar iyo warbixino quseeyo Soomaaliya iyo caalamka aad u heshid adigoo subscribe dhahaya maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa sameystay isbahaysi cusub kana soo horjeestay laba sharci oo ay wada dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo kulan shalay ku qaatay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa isla gaaray heshiis iyagoo sidoo kale ka hor yimid sharci ay baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen iyo kuwa hadda hor yaala kulanka ay yeesheen madaxweyne Dani iyo madaxweyne Xaaf ayaa waxa ku weheliyay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada maamul qodobada diiradda lagu saaray kulanka waxaa qayb ka ahaa adkaynta amniga dib u heshiisiinta shacabka labada maamul iyo iskaashiga labada maamul ee dhanka ammaanka iyo mowqifka siyaasadeed ee Galmudug iyo Puntland sida ku cad war-saxaafadeed ka koobnaa 8 qodob oo ay soo saareen labada madaxweyne ayaa waxay uga soo horjeesteen sharciyada batroolka doorashooyinka iyo canshuuraha oo ay gacanta ku hayaan dawladda Soomaaliya iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin inta wada tashi guud lagala sameynayo sharciyadaasi madaxweyne Xaaf iyo madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxay isla soo qaadeen shaqaqadii ugu dambeysay ee ka dhacday meel duleedka ka magaalada Gaalkacyo oo ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland halkaas oo ay ku dhinteen 3 qofood halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana labada madaxweyne ay amaaneen dadaalada nabadeed ee odayaasha dhaqanka ay ka sameeyeen arintaasi ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa ka hor yimid qorshe ay dawladda Soomaaliya uga saari lahayd magaalada Kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa shabakada wararka TV u sheegay in ciidamada Kenya ay diideen inay ka baxaan garoonka dekada iyo jaamacadda magaalada Kismaayo oo fariisimo ay ku leeyihiin kadib dalabyo uga yimid howlgalka midowga Afrika ee AMISOM saraakiishan oo mid kamid ah uu ka tirsan yahay la taliyayaasha sarsare ee dhanka ammaanka ee madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shabakada wararka TV u sheegay in ciidamada Kenya ay warqad u qoreen taliska AMISOM una sheegeen inaysan ka bixi doonin Kismaayo iyagoo ku micneeyay dalab uga yimid madaxweyne Axmed Madoobe ujeedada safarkii socdaal ee wakiilka midowga Afrika u qaabishan Soomaaliya ee taliyaha ugu sareeyay ciidanka AMISOM ay ku tageen magaalada Kismaayo toddobaadkan ayaa ahaa sidii xal looga gaari lahaa arintaasi waxaana saraakiisha Kenya ee ku sugan Kismaayo ay diideen inay ka baxaan goobaha loo cayimay iyagoona sheegay in dalabyo ay ka haystaan Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka Jubbaland sida sarkaal amni oo ka tirsan maamulka Jubbaland uu xaqiijiyay warbaahinta Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa qaba aragti ah in haddii ciidamada Kenya ay ka baxaan Kismaayo ay halis ku jirto damiciisa siyaasadeed ee hogaanka Jubbaland sanado kale sidoo kale dawladda Kenya ayaa u aragtay inay qasaare xoog leh wajihi doonto haddii ciidamadeeda ay baneeyaan garoonka dekada iyo jaamacadda magaalada Kismaayo oo ah 3 rug oo muhiim u ah ciidamada ku sugan Kismaayo shirkado shidaal baaris oo lagu kala magacaabo Space Room iyo Som Oil Gas ayaa malaayiin dollar siiyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre si howlo shidaal baaris ay uga sameeyaan Soomaaliya shirkadaha hogaanka u haya iibinta konton blog oo kamid ah dhulka laga helay shidaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in malaayiin lacag ay siiyeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya dhowrkii bil ee ugu dambeysay shabakada wararka TV ayaa ogaatay in intii u dhaxaysay 20 Febraayo 2019 iyo 11 May ee 2019 labada shirkadood ay bixiyeen lacag ku dhow 8 milyan oo dollar lacagtaas oo toos loo siiyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre lacagta ayaa ku timid dalab ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyadoo u sababaysay in dhaqaale xumada haysata dawladda Soomaaliya isla markaana laga jartay deeqihii dibadda tan iyo markii ay eriyeen wakiilkii qaramada midoobe u fadhiyay Soomaaliya sida ay ogaatay shabakada wararka TV
lacagta ay codsatay dowladda Soomaaliya waxaa kaloo qayb ka ahaa oo ay ku sheegtay in ay u isticmaali doonto fududeynta taabagelinta sharciga batroolka si wada ogol uga meel mariyaan baarlamaanka Soomaaliya taa oo ay ku sheegeen in looga maarmi karo dowlad goboleedyada. shirkadahan ayaa 2 jeer kala bixiyay lacagtan iyagoo fulinaya dalabka dowladda Soomaaliya. qof ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shabakada wararka TV u xaqiijiyay xogtan, sidoo kalena waxa uu sheegay in habeena badan ay kulamo ka dhaceen madaxtooyada Soomaaliya xilli saqdhaxa kulamadaasi oo aan la ogeyn natiijada ka soo baxday. kulankii u dambeeyay waxa uu dhacay 7 bishan, waana markii la bixiyay lacagta ugu dambeysay ee shirkadahan, waxaana la aaminsan yahay in lacagtaasi lagu kala iibsaday codadka baarlamaanka si loo ansixiyo sharciga batroolka Soomaaliya. guddi ka shaqeynaya sugidda ammaanka doorashooyinka Jubbaland ayaa looga dhawaaqay magaalada Kismaayo. maamulka Jubbaland ayaa magacaabay guddi hoosaadyo ka shaqeeya howlaha sugidda amniga guud iyo goobaha doorashooyinka dhawaan ay ka dhici doonaan magaalada Kismaayo. wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga Jubbaland ayaa lagu sheegay in la magacaabay guddi hoosaad ka kooban saraakiil iyo khubaro dhanka amniga kuwa oo mas'uul ka ahaan doona habsami u socodka iyo xaqiijinta shaqada ciidamada booliiska ee sugaya amniga doorashooyinka Jubbaland. sidoo kale guddiga ayaa hubinaya in ciidanka booliiska ay waajibaadkooda u gutaan si hufan, cadaalad iyo dhexdhexaadnimo xilliga doorashooyinka. dowladda Soomaaliya ayaa diiday in fursad ay siiso dowladda Kenya. Soomaaliya ayaa shalay ka jawaabtay tallaabooyin xiriir ah oo ay qaaday dowladda Kenya kuwa oo u muuqday kuwa dhaawacaya darisnimada iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan. Soomaaliya iyo Kenya ayaa dacwad ka taala maxkamadda cadaaladda ee ICJ, laakiin 6 bilood ka hor natiijada dacwadda ayay dowladda Kenya bilowday rafasho siyaasadeed. Kenya ayaa dhowr jeer soo jeedisay Soomaaliya in si ka madax bannaan maxkamadda ICJ looga wada hadlo muranka badda, laakiin madaxda Soomaalida ma aanu tixgelin dalabkaasi. Kenya waxay urur goboleedka IGAD iyo ururka Midowga Afrika ka dalbatay in muranka kala dhaxeeya Soomaaliya loo xalliyo si heer gobol ah, laakiin Soomaaliya ayaa la sheegay in aanu taasi aqbalin. waxaa kaloo jira aragti ay waday Ethiopia oo ah in labada wadan ay si wadajir ah u wadaagaan faa'iidada dhulka lagu muransan yahay iyadoo aan laga wada hadlin lahaanshaha, laakiin taasi Soomaaliya waa ka cudur daaratay. wixii markaasi ka dambeeyay Kenya waxay bilowday dagaal nooc walba leh oo ka dhan ah Soomaaliya, iyadoo aaminsan in aan iska caabinta Soomaaliya ay abuuri doonto dhaba ay labada wadan kaga wada hadlaan waxa ka dhaxeeya iyadoo ay ka maqan tahay maxkamadda ICJ. safiirka Soomaaliya ayaa laga soo saaray Nairobi. socdaalkii ayaa lagu adkeeyay shacabka Soomaaliyeed iyadoo baaristii wajeer la soo celiyay. madaxdii dowladda ayaa dalku galkii Kenya loo diiday. caburin ganacsi iyo hadal xanaf leh ayay abuurtay Kenya, welina wax kale ayaa laga filan karaa. Soomaaliya waxaa ku sugan cutubyo ka tirsan ciidamada Kenya. ganacsiga qaadku waa furo dhaqaale oo ay Kenya leedahay. muwaadiniin badan oo Kenyaan ah ayaa ka xamaasha Soomaaliya, waxaana intaasi laga fahmi karaa inay Soomaaliya heli karto tallaabo ay kaga jawaabi doonto daandaansiga Kenya, laakiin wax ficil ah ma aanu samayn Soomaaliya. qoraalkii shalay ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay tallaabooyinka ay qaaday Kenya oo ay ku carqaladeynayso xiriirka labada dal. Soomaaliya waxay muujisay siday uga walaacsan tahay waxyaabaha soo kordhay, balse waxa ay sheegtay in mar walba qadarin sare iyo xushmad ay u hayso dowladda Kenya. wararka dibadda wararka TV saaku idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka ayaa u hanjabtay dowladda Turkiga iyadoo xiisadda labada wadan ay cirka isku sii shareerayso. aqalka Kremlin ee looga arrimiyay Ruushka ayaa cambaareeyay kuna sheegay wax aan la aqbali karin waqti la sheegay in Mareykanku uu qabtay Turkiga si uu uga laabto heshiis uu ku iibsanayo hubka difaaca gantaalada Ruushka ee S-400 taa beddelkeedana uu iibsado midka Mareykanka ee Patriot. Moscow ayaa ka jawaabaysay warbixin uu baahiyay telefishinka MBC oo sheegay in Washington ay Turkiga siisay kaliya 2 toddobaad si uu heshiiska Ruushka uga laabto mid cusubna ula galo Mareykanka ama ay wajihi doonaan ganaax culus. Turkiga iyo Mareykanka. wasiirka difaaca Turkiga ayaa Arbacadii sheegay in Ankara ay isku diyaarinayso cunaqabatayn kaga imaanayso Mareykanka sababo la xiriira iibsashada hubka Turkigu uu ka iibsanayo Ruushka.
dowladda Kenya ayaa dalkeeda ka masaafurisay ku dhawaad 20 qof oo ajnabi ah oo ku sugnaa dalka Kenya. dowladda Kenya ayaa musaafurisay 17 ruux oo ajnabi ah oo ka shaqeynaya qamaar sida ay ku warantay warbaahinta gudaha. talaabadaasi ayaa imaanaysa maalmo kadib markii wasiirka amniga gudaha Kenya uu ku hanjabay in dalka Kenya ay ka masaafurin doonaan ajnabi ruqsado ganacsi oo kala duwan ka dalbaday, balse waxay ganacsiga u bedeleen qamaar. taasi ayaa wasiirku uu sheegay inay sababtay in dalka Kenya ay ka masaafurinayaan dadkaasi ajnabiga. wargeyska gaarka loo leeyahay The Star ayaa sheegay in wasiirku uu saxiixay amarka lagu masaafurinayo dadkaasi oo u kala dhashay wadamada Talyaaniga, Shiinaha, Spain, Serbia, Kuuriyada Koonfureed, Bulgaria, Denmark iyo Turkiga. wargeyska Daily ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay ka dhaceen ruqsadihii isla markaana aysan haysan dukumiintiyo ay ku sii shaqeyn karaan. qaar kalena waxaa lagu eedeeyay inay ka baaqsadeen in ay canshuurta bixiyaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad saaka kala socoteen wararka TV waa naga inta.